maxaad ka taqaanaa sababaha guusha ee Bill Gates? Bill Gates waa ninka afaraad ee adduunka ugu maalqabeensan sanadka 2021 muddo dheer oo horena kaalinta koowaad ayuu kaga jiray liiska maalqabeennada adduunka. Waxa uu ku guuleystay inuu kaalmaha hore kaga jiro dadka sababtoo ah kacaanka tiknoolajiyadeed ee adduunka maanta ka jira, gaar ahaan dhinaca samaynta barnaamijyada iyo tiknoolajiyadda xogta ee information technology loo yaqaano. maadaama uu horumarku yahay higsiga uu ruux kasta habeen iyo dharaar ku riyoodo, waxaa laga maarmaan ah in waayo aragnimada iyo sahayda geediga horumarka laga raadiyo dadka hore u maray jidkaas. sidaas awgeed qaab nololeedka, taariikh nololeedka iyo hanaanka maamul iyo shaqo ee dadka nolosha guusha ka gaadhay waxaa markasta ku jira casharo ay muhiim tahay in si dhugmo leh aynu eegno. sanadkii 1975 ayaa Bill Gates iyo saaxiibkii Paul Allen ay aasaaseen shirkadda caanka ah ee Microsoft. muddadii dheerayd ay jirtayna waxa ay si joogto ah u sameynayeen horumar mararka qaarkood rumaysigeedu maskaxda ku adkaanayay. sideedabana guushu ma aha sida ay dadka qaar ku andacoodaan shay sabab la'aan isaga yimaada iyo nasiib keliya, balse waa midhaha dadaal dhinacyo badan ah oo la sameeyey. warbixintan oo aynu wakaalado kala duwan ka soo qaadanay waxaynu ku eegaynaa dabeecado uu Bill Gates caan ku yahay oo khubarada horumarka naftu aaminsan yihiin inay qayb ka yihiin sababaha guusha u horseeday. xiise. Bill Gates tan iyo markii uu noqday arday fasalka 8aad ee dugsiga ku jira, waxa uu kalgacal dheeraad ah iyo xiise xoog badan u qabay inuu helo tiknoolajiyad cusub iyo barnaamijyo. in aad guul ka gaadho shaqada ama hawsha aad haysaa waxay u baahan tahay inaad marka hore xiise iyo kalgacal u hayso hawshaas, si taas u fududeyso inaad dulqaad u yeelato dhibteeda iyo in aanad ku daalin dadaalka dheeraadka ah ee u baahan tahay. shaqada wax ka baro. Bill Gates waxa uu aaminsanaa tan iyo bilowgii shaqadiisa in qofka oo waxbarasho iyo aqoon u leh shaqada uu qabanaya ay tahay jid guusha u dhoweyn kara. waxa uu si gaar ah u aaminsan yahay in waqtiga ugu habboon ee uu qofku aqoon iyo waayo aragnimo u yeelan karo shaqadiisu ay tahay marka uu shaqaynayo oo uu waxbarasho ka kororsado. taas macnaheedu waa in qofku aanu ka koobnaan inuu qabto waxa ay shaqada loo diray tahay oo keliya, balse uu raadiyo aqoon dheeraad ah oo la xidhiidha si uu ugu soo kordhiyo wax ka maqan amba u xalliyo dhibaatooyinka ka hor imanaya oo aanu markasta gurmad uga baahan cid kale. shaqadaada ka dhiga waxbarasho oo ku dadaal in inta lagu sheegay aad ku darto in kale oo sii qurxisa. go'aan qaadasho iyo ku dhac. go'aan qaadashadu waa tallaabo aasaas u ah geediga nololeed iyo guusha uu qofku raadinayo. waa astaan geesinimo oo noloshu aanay ka maarmi karin. Bill Gates waxa uu ka mid yahay dadka lagu tilmaamo ku dhiirashada go'aan qaadashada iyo inay leeyihiin ku dhac ama ku calool adayga tallaabooyinka uu qaadayo. go'aamada geesinimada leh ee lagu xasuusto Bill Gates waxaa ka mid ah aasaaskii shirkadda Traf oo Data oo ka shaqayn jirtay qiyaasta dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo inay warbixino u diyaarisay injineerada dhaqdhaqaaqa jidadka. shirkaddan oo aasaasay isagoo 17 sano oo kaliya jiray waxa ay samaysay guul weyn oo wax badan ku soo kordhisay tiknoolajiyadda dhaqdhaqaaqa gaadiidka. waxa aanay sees u noqotay shirkadda Microsoft oo 3 sano kadib ay isu rogtay. Bill Gates oo ka hadlayay muhiimadda ay go'aan qaadashadu u leedahay gaadhista guusha ayaa yidhi, si aad u faa'iido waa inaad mararka qaarkood ismidaamiso. shaqo kasta ma dhammaystiranto haddii aanay helin maskax iyo maal loogu hagar baxo inta ay gaadhayso heer ay iswado. way adag tahay in guul ay hawaysato naf aan diyaar u ahayn inay waqti dheeraad ah iyo shaqo culays badan geliso mashruuca ay doonayso inay ku guulaysato. Bill Gates waxa uu ka mid yahay dadka lagu tilmaamo shaqo badnaan iyo hagarbaxa hawshan ay gacanta ku hayaan. waxa uu dheer in aanu shaqada kaga niyad jabin hagardaamooyinka iyo dib u dhacyada marar badan ka hor imanaya. waxaa tusaale dhow ah sanadkii 1980 oo shirkadda Microsoft ay gaadhi kari lahayd heerka laga rabay, miisaaniyadeeduna aanay ku filayn inay shaqaalaysiiso dad ku filan suuqgeynta iyo iibka wax soo saarkeeda. Bill Gates markii uu xaaladaas arkay waxa uu iskaga tegay jaamacadda Harvard oo uu dhiganayay, isagoo doonay in waqtigiisa oo dhan geliyo kobcinta iibka shirkadda Microsoft xoogana uu isugu geeyo soo saarista barnaamijyo dadka xiise geliya. ugu dambeyntii Bill Gates waxa uu ku guuleystay in shirkadiisu ay heshiis la gasho shirkadda IMP si ay u soo wada saaraan barnaamijyada kombiyuutarada gaarka loo leeyahay, taasoo noqotay barbilowga geediga guusha Bill Gates. waxaana jidka u jeexday guushii mucjisada ahayd ee Microsoft gaadhay sanadkii 1990 markii ay soo saartay barnaamijka Office-ka loo yaqaano.
shan hogaamiye ruuxiya u noqo kooxda shaqaynaysa. maamulaha oo qayb ka noqda kooxda shaqaynaysa waxay xoojinaysaa niyadda iyo xiisaha shaqaalaha waxa aanay horseedaa in hawshan la qabanayo laga midho dhaliyo. qofka shaqaalaha daacadnimo iyo xamaasad dheeraad ah ayaa ku shaqeeya marka uu hareertiisa ku arkayo mulkiilaha ama maamulaha oo dhibta uu marayo oo dhan la qaba. Bill Gates iyo Paul Allen oo ay shirkadda wada aasaaseen waxay caan ku ahaayeen inay wadajir uga mid noqdaan howlwadeennada shirkadda. waxa ay ku jireen qayb kasta oo ka mid ah shaqada iyagoo aan ka socnin howlwadeennada kale, wakhtiga iyo culayska hawshana la qaybsanaya. marar kala duwana uu ka hadlay arrintaas waxa uu ku celceliyey in hogaamiyaha looga baahan yahay inuu howlwadeennada qayb ka noqdo kana caawiyo gudashada waajibaadkooda. hal adayga. go'aan qaadashadu waa u muhiim shaqada, laakiin in go'aan lagu adkaystaa waa arrin kale oo marar badan lagu fashilmo. go'aan qaadashada ha ku degdegin ka hor inta aanad samayn daraasad iyo ka fikir ama aanad cid takhasus u leh kala tashan, laakiin marka aad gaadho ha ka walaacin inaad ku adkaysato fulinta go'aankaas. waxay ka mid tahay sababaha guusha lagu gaadho. Bill Gates waxaa lagu tilmaamaa nin hal adayg badan oo aan dhayal ku niyad jabin. guulaha Microsoft iyo koritaankeeda xawaaraha ku socday waxay in badan ku xidhnaayeen hal adayga uu la yimi, kaasoo suurtageliyay in shirkadiisu ay noqoto barbilowga isbeddelka dunida barnaamijyada iyo teknolojiyadda xogta. dhaliisha ogolow. Bill Gates waxa uu aaminsan yahay in hawsha uu qofku qabanayo oo dhaliishada la sheegaa ay ka mid tahay sababaha guusha horseeda. sababtuna waa in dhaliishu ay qofka ku dhiirigeliso inuu qaladkiisa wax ka barto iyo inuu xal u raadiyo dhibaatooyinka ka hor imanaya. Bill Gates waxaa lagu tilmaamaa nin dulqaad badan u leh dhaliisha xitaa marka ay tahay mid aad u foolxun, isagoo cid kasta oo la yaabtana u sheega in dhaliishu ay tahay barbilowga ay guuldarradu isugu beddesho guul. sidaas awgeed qof kasta oo guul higsanaya uu kula taliyo in dhaliisha uu muhiimad siiyo. guusha si dhaliil leh uga fikir. aasaasaha shirkadda Microsoft waxa uu sheegay in guuldarradu ay markasta tahay macallin in ka badan inta ay guushu macallin noqon karto. waxa uu tilmaamay in guushu ay sideedaba qofka ku abuurto qab iyo dareen ah isla qumanaan. haddii qofka guulaysta uu ka hortagi waayo saamaynta iyo xakamaynta ay guushu ku keento afkaartiisana, guushaas waxay khatar u tahay inaanay sii socon karin. Gates waxa uu intaas ku daray in guushu ay tahay macallin xun maadaama ay qofka ku keento inuu ku tagsoomo naftiisa iyo kartideeda, una fikiro sida inuu ka gudbay xuduudka guuldarrada oo aanu cabsi ka qabin inay ku timaado. sidaas awgeed furayaasha guusha ay ka mid tahay in hawl kastoo aad qabanayso aad ku eegto il dhaliilaysa, islamarkaana aanad raadin meelaha ay shaqadaadu qurux badan tahay, balse aad ka fikirto galdaloolooyinka ay leedahay. bara sida maya loo yidhaahdo. himilada iyo hiigsigu waa dabeecad aadamaha badankiisa ku abuuran. maalintu waxay ka kooban tahay 24 saacadood, laakiin dad badan waxa aanay fahamsanayn in udabdhexaadka guusha ama guuldarradu ay tahay sida loo maamulo saacadahaas. Bill Gates waxa uu ku celceliyay muhiimadda ay qofka u leedahay in uu maya u odhan karo, isagoo oo sheegay in qofka oo si fudud u aqbala dalab kasta iyo hawl kasta inay tahay sababta lumisa waqtiga uu qofku guusha uga faa'iidaysan lahaa. Bill Gates waxa uu sheegay in qofka oo maya odhan kara ay samayso fursad uu xoogga ku saaro hawlaha uu ka midho dhalin karo, taasina ay tahay sabab guusha u horseedi karta. qofka oo barta sida maya loo yiraahdaa waxay ka caawisaa inuu iska xidho hawlaha kale ee ka mashquulinaya inuu saacadaha uu haysto uga faa'iidaysto ka midho dhalintooda. niyad wanaag. Bill Gates waxa uu ku warramaya in niyad wanaagu uu kaalin muhiim ah ka qaato xallinta mushkiladaha iyo rumaynta guusha, sidoo kalena raad togan ku yeesho dhaqanka shaqo. isagoo arrintaas sii sharaxayana waxa uu sheegay in niyad wanaagu uu ka mid yahay sababaha ugu muhiimsan ee guusha keena. waxa aanu intaas ku daray in qofka oo marka uu guul daraysto dib u dhadhansada xusuustiisana ku soo celceliya guulaha uu hore u soo gaadhay ay ka mid tahay sababaha guusha u horseedaya, maadaama ay ka ilaalinaysa niyad xumo kuna dhiirigelinaysa hal adayga
iyo inaanu quusan. cilmi baaris isla arrintan ka warramaysana waxa ay ka marakacday in farxadda iyo niyad wanaaggu ay 12% kordhiyaan wax soo saarka uu qofku samaynayo, taas oo ah tallaabo weyn oo ku dhaweynaysa guusha. muhiimadda ay leedahay in qofku uu farxadda iyo niyad wanaagga naftiisa ka shaqeeyo waxa iyadana muhiim u ah inuu gacan ka geysto kor u qaadista niyad wanaagga howlwadeennada iyo shaqaalaha amba jaalka kale ay wada shaqaynayaan. markasta oo aad guuldarro la kulanto, ka fikir guulihii hore aad soo martay si uu niyad wanaaggaasi kugu dhiirigeliyo in aanad ku joogsan guuldarrada hadda. halbeega guusha. khudbadu Bill Gates sanadkii 2013 ka jeediyay hay'adda Bill and Melinda waxa uu ku sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu sameeyo ay ka mid tahay inuu dejisto halbeeg shaqo oo ku cadeynaya halka marka uu gaadho uu guul aqoonsanayo iyo qiyaasta uu ku cabirayo in shaqadiisu ay guuleysatay amba ay guul daraysatay ama meelaha uu ku fashilmay uu ku garan karayo, taasoo fursad u siinaysa inuu yaqaano halka uu socdo iyo waxa ka qaldan. taasina ay u fududaynaysa sixitaanka maadaama uu garanayo waxa qaldan iyo halkay ka qaldan yihiin. Bill Gates waxa uu sheegay in qof kasta guul wax ku ool ah gaari karo haddii uu leeyahay yoolal cadcad, jeexdana jidka yoolkaas gaarsiin kara, isla markaana uu dejista halbeeg uu ku qiyaaso hadba halka uu marayo iyo inuu weli ku taagan yahay jidkii guusha. faduuli noqo. Bill Gates waxa uu sheegay in jacaylka iyo xiisaha badan ee uu qabo wax isweydiinta iyo isku dayidda ogaanshiyaha shay kasta oo ku cusub ay ka mid tahay sababaha meel fog gaarsiiyay, isagoo intaas ku daray in faduulinimada iyo isku dayga inaad wax kasta ogaataa ay muhiim u tahay cilmi baarista iyo daraasaynta hawsha aad doonayso inaad guul ka gaadho. waxa uu sheegay marka wax ku cusub ay hor yimaadaan ee uu doonayo inuu xog ka helo inuu akhriyo ilaa 5 buug oo waxaas ku saabsan, isagoo intaas ku daray in dunida casriga ah ee maanta ay fudud tahay in waxa aad xog ka doonayso aad ka heshay internetka. dadka kula shaqaynaya ku aamin hawsha. Bill Gates waxa uu sheegay in xilligii ay shirkadda Microsoft bilowday inay ballaarato inuu dhib aad u badan kala kulmay wareejinta hawlihii tirada badnaa ee uu isku hayay oo markan aanu isku sii wadi karin maadaama ay shirkaddu cusbayd. hawl kasta isaga ayaa gacanta ku hayay, kalsoonida uu gacantiisa ku qabay awgeedna markii ay shaqada horumarka samaysay waxay ku abuurtay cabsi uu ka qabo in hawlahaas oo uu wareejiyaa ay tayada iyo xaddiga wax soo saarkaba hoos u dhigi doonto, sidaas awgeed uu muddo ku dhici la'aa in shaqooyinkaas uu wareejiyo. si kastaba ha ahaatee markii uu wareejiyey howlahan badankooda waxaa u soo baxday in tayadii aanay waxba iska bedelin xitaa isagoo aan dabagal xoogan ku haynin, iyo in wax soo saarkii sii kordhay siina fiicnaaday dadka hawshan haya oo batay awgeed, isaguna uu waqti firaaqaha u helay ka fikirka sii wanaajinta wax soo saarka shirkadda. naftaada jeclow. inaad naftaada jeclaato waa lama huraan, waana mid ka mid ah siraha ugu waaweyn ee guusha. waayo haddii aanad naftaada ka raali ahayn, hawsha aad wadana ku qanacsanayn, way adagtay inaad ka midho dhaliso hawshaas, waxaana caqabad ku noqonaysaa guul aad gaadho. guuldarro diyaar oo haw mar kasta. noloshu waa dur iyo daabac. inaad guusha u shaqaysato guuldarradana u diyaar ahaataa waa sida keliya ee uu qofku uga soo kaban karo haddiiba ay dhacdo in hawshan uu waday guuldarraysato. qofka oo guusha isa siiyaa waxa ay keentaa in dib u dhac iyo turaanturo yar oo ku yimi ay hawshiisa ka niyad jabiyaan kana reebaan sii wadista geediga guusha, halka qofka guuldarrada diyaarka u ahaa uu sii qorsheynaya haddiiba ay timaado sida uu uga soo kabanayo isagoo sii wada geedigii uu guusha ku goobayay. Marjaan Tube.